ها waxaan feer ma ahan markaas waxay ku dhahay afka ku hadlaysi waa af ajnabi qofka diidaysi inuu gacantu taagtana waa ajnabi marka waxaan ku yiraahdaa anigu Soomaali baan u dhashtan ku yiraahdaa ajnabi ma ku dhahay baasaboorka waa ajnabi marka waxaan ku yiraahdaa badana hadda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha kulliba ajnabi bay wadayeen sababtii saas loo arko laakiin asalkeena Soomaali baan ahna oo dadkeena badii waxaan qana ala kulli xaal taas bay ahayd dad ma inka joojin kara su'aali kartaa ama story waan wadi kara saacada waa gartay marka waxaad ii sheegtaa arintaas kadib maxaa dhacay marka kadib hadallo bay igu dhahday aan ku dhahday marda maxaa ku hadlin hadalkaas markaas waxaan ku dhahay afkayga aan waxaan ku hadli karaa boorso yar bay wadatay boorsadii wixii ka soo bixisay mid yar oo packet knife la dhaho jeebka la gashto oo loo yaqaan xilwaanta markaas inay wado markaas qof markay istagaalaan sheegaa inay mid wadatay laakiin waliga xaadir ma arkin adigu way soo qabsatay way soo garab istaagtay markaas waxay ku dhahay hadalka hadda dib ugu soo celi waan ka filan waayay qof hadda aan salaamayo oo waxaan waa siyaasad moogta qof walba dhinac curu aadi kara ma garanay in siyaasad xageeda ay gal dagaaltamayso am saarin kale marka way soo garab istaagtay hadalkii ku soo celi bay dhahday waan iska fiiriyo wasiiradda ugu dambeysay waxay ku dhahday gabadha dhali karto way iska daayo fadhiiso maanta maalin marmaysa way iska fadhiisatay marka kadib waan la fasaxay waan baxnay banaankii baadana isku qalaaf meeshana ko wada joogno maxaa la dhihi jiray aan arimihi hadana isku soo qabsan rabto wixii soo baxsata baan iska aangelinay gabar walaashay marka shaqada laga soo qaaday anigu walaashay gaarina naga dhacays iyo driverkayga imaadeen oo marka baakin ku sugaya maxaa la dhihi jiray arkeen albaabkii laga soo deganaya dagaalka ku bilaabay mugta waxay gabadhu waxay aragtay badan isku shamuun way soo baxday marka hal walaashay meesha lagu soo booday of course qof walaashaada oo qof lagu goobanayo soo orday mugta markay soo orday wasiirka meesha joogo wasiirka diinta magaciisa ma garanayo laakiin wasiirka diinta iyo khilaafaadka ma laha ba meesha taagnaa gabadhii hore laga xiraba oo gabadha waxay u qaateen inay dagaalkii qofka qof walaashiis dagaalkii inay galayso camal oo kale ayadana way og tahay ma taaban karto xildhibaan oo xilligeedana ma ku shaqo jaamin waxa kale waaba la qabtay markiiba waa la xiro dadka inta aniga dagaal ku jiro haba qof dhinac iga jiiday maxaa la dhihi jiray gabadha walaashay marka waa la xiro anigu marka miir waxa igu soo noqday walaashaa way xiran tahay gaariga ay fadhiisay marka way cidda amarka walaasha lagu xiray bixisay tahay marka ba ogaatay laayada markaan weydiyo xalda wasiirka iyo gabadha maamada la socotay oo xildhibaanada saaxiibadeeda oo ayaduna dhinac iga jiijiidaysay oo marna iska dhigaysanay qabanaysa marna dhinac oo labadooda isku jeedo u socdeen ba oo amray in la xiro marka wasiir iyo xildhibaan bay kala ahaayeen oo wasiirkana xildhibaan uu yahay marna oo wasiirka diinta marka dadka saas igu sheegeen markaan aaday gaarigi ma ay ka xeelin mogtahay gaariga oo meesha waxay ka dhacaysaa baarlamaanka way aragtaa hadda wali ma baantay gaariga inta ay geliyeen gaariga inta oo taga askarigi aan ku dhahay gabadhi walaashay maxaa loo xiraa aniga qof dagaal ka soo baxeen gacanteeda waan tusnaa gacmadeena waa calaamaysan tahay xataa askarigi inta soo jiido dharbaaxisa ay soo qabtaa laga qabtay markaas gacanteeda hadda way calaamaysan tahay waxaan ku dhahay ujeedin askarigiina inuu rafaadinayo oo laga qabanaynin oo maxaa la dhihi jiray dharbaaxina ii soo qad inuu igu dhufto laakiin ma igu dhufan waa laga qabtay laakiin he threatened me oo waa daw ii hanjab walaanta adigu inta dhan ma uu si jeedo walaashay muuqato laga xiro wax lagu xirnay ee jirin oo qofka dumisan aniga ah ala kulli xal marka kadib way baxdo saldhiga la geeyay waan u tagnay anigii xildhibaano kale iyo wasiiriin baa soo soconay xildhibaan kamid ah baa soo damintay xildhibaan kamid ka wuxuu ilaahay ka dhigay inuu noqdo xildhibaan in yar ka soo hor arrimo ay dawladda ka shaqeeyaan ka soo horjeedo maadaama xildhibaanka soo damintay la soo daayay askarigiina waa lagu xiray oo soo daayay inkastoo amarka xataa kii ka sii weynaa ka soo qaatay waa la xiro xalo dhan buu soo wactamay soo calaaday taawako maadaama maxaa la dhihi jiray macaaradka oo ahaa loo xisaabinayo baa hadana arintii loo sii dawlad waxa laga sii dhigay wax kale oo qof anina macaarad aan wiligeey dawlad macaarad aan ku noqon dawladana wiligeeyga farmaajo qofkii ugu horeysay oo publicly dadka xataa support garanaya hoosoosay uu aamusanayo aniga ku soo anaaskariyo qof walbana garanayo maalin iyo aakhirna soo sajina aniga buu ahaa oo qof kale aan maxaa la dhihi jiray kala tashanay aan kala jeclay madaxweyne kale aan ka fikirayna qof lacag ku siinayo aan waxa u qaadan dartiisa aan u qaadan aan support garay marka wiligeey dawlad ma soo jeedin gabadhi hadda xaaladeedu xagee ku dambaysaa gabadhi maanta ana ko safar u socon oo gudoomiyaha baarlamaanka gudigiisa ku jirno
oon rabnayna baaldhabo aadno cala masaaka qayb qaadano ba aeroboortka ma garanayo dad baa call sameeyeen la dhaga gabadhii way joogtaa waa bixi rabtaa ma garanayo calaa kula xaal amar kor laga soo bixiyey baa gabadh inta loo imaaday askartii jiidan anoo dhahay anay xildhibaan banahay haddii xataa bixi kar ma bixi karta intay ku dhahdeen tartiibteena dib u noqonaynaa kiiska intuu ka dhimaanaya ma bixi karta ma safri karta la dhaho tartiib u noqonaynaa maya waa in la kaxeeyaa waa la soo kaxeeyay anoo qaylinayo dhahay ma kaxeynaysiin wasiiryo qaylinayo xildhibaano qaylinayo diyaaradii anagoo koraynaana laga baajiyey oona sababna la ii sheegeen oo la dhama bixi karto hay haddee bixi karin waa wada joogana micno malaa laakiin gurigeena ku noqonayna ma waa in la xiraa saldhiga la geeyaa sidii lagu soo xiray calaa kul xaal meel kasta maray gudoomiye la hadlay xildhibaano qof walba horta waxaa aadaba gabadhii xildhibaanada oo iyada dagaalkan soo galna waa dad aan isku cid aan nahay waxayna sida family baa loo xalinayay ibilka horeba ma ahayn in ra'iisul wasaare involve soo noqdo ra'iisul wasaaraha involve laga dhigo markii u tageen dadkii xaqiiqi matalayana isku arkeen wuxuu ugu jawaabay wuxuu dhahay gabadhii way dulmsan tahay la soo dulmiyo la soo jigaskeen lagu soo xaq asoo aniga storygayga ka warhayn oo loo sheegay xataa dabcan is dhahaya oo ka warhayn already defense mode oo wuxuu galay gabadha inuu protect garanayo ma fahamtay waya marka in walaasha la xiro iyo in arintii bangiga dhexe baarlamaanku meel mariyay walaasha loo xiro sidee isku qabanayaan marka xagee iska leeyihiin anigu waxa la ii waday anigu maadaama xasaanad loo xiri karin qofka ahelkii ugu soo dhibaa laga gajaraya so aniga waxa lagu cabsi gelinaya aniguna government kan maanta jirto aniga markasta saan u sheegay government aan ka soo horjeedo aniga sharci ahaan waxaan ku soo bartaa mise u ogaan u garanay marka xildhibaan tahay sharci baa dejisaa waa sharciga wadanka ma fahantay wixii aad ku dartay waxa ka jirtana waa wax wiligiisa soconayso adigoo markastaba ay haday wanaag keentana wanaagiisa qaan sumaatada keentana xamaasiisa qaan sax walaal adigu si la u tahay marka taabaan aaminsanaa taasana xambaarsanaa madaxweynaha iyo wasaarana waa dad oo de noo haayo maxaa la dhihi jiray hool noo wado aan anaka u dhiibanay ma fahantay marka hadii arimo ayake ka soo shaqeynay u arkay inay keenayso wadanka wanaag waa dhici kartaa fikirtooda inay u arkeen wanaag inay keenayso ee ka wadan xumaato way dhici kartaa wayna dhici kartaa inay taa u arkeen ma fahantay oo aniguna ujeed marka say u sheegan anina u arkay inay qalad tahay oo ka imaan karto dhibaato maadaama wadamo badan baa la soo dhaqmaan soo arkay wadanka sana xumad qaybta ugu muhiimsan qof wadan meesha u dhashay baahayo qof ajnabi anagu waa soo shaqeysan wadamaha ajnabi waan ka ahayn oo waxaan ku ahayn qaxooti wadamo kale ku ahayn waana ka soo shaqeysan laakiin qaybta u weyn oo maxaa la dhihi jiray de bangigii weey ma fahantay oo maaliyada Soomaaliya soo galayso marka in qof ajnabi uu ka shaqeyn kara laakiin qofka sare marka saxiix ugu dambeeyo markastaba inuu noqdo qof wadani ah taas aan fikirkeyga marka aha laakiin fikirkeyga ma ahan qof dadka nima guraanay karaan ala kulli xaal waya marka gabadha kula dhalatay aad ii sheegayso inay xiran tahay ma xaqiijisay in kiis iyadu ay geysatay loo xiray iyo in adiga awga loo bartilmaameedsaday ma kala xaqiijisay si kala xaqiijinaa waa taagnaa aniga kiis iyadu walaashay inay geysanay kiis anaga u taagnaa kiis kan aniga ku socotaa xildhibaanada isdagaalna aniga gacan is saarnay ma fahamtay gabadha walaashayna way soo dooneen oo soo kaxeynayeen oo gaari bay ka imaatay shaqo bay ka imaatay ma fahamtay marka ayadu kiiska ee lagu waxaanay ma jiro kiis aniga lagu wada way waxa gabadha loo tarjargareynaa darteeda waa ma aniga maadaama li arkay inaan ahay qof mucaarad aan la saaxiib ahay dad aniga dawladda ma qasab ma aha inaan la saaxiib wax dawladda la soo u ah hogaam u ah aniga xildhibaanaha dadka kulligood war kii maxaafid ay kii mucaarad kulligood waxaan la saaxiibo dad waxaan dhaxmar karto ganacsi wax baan dhaxmar karto sama laakiin hadii maanta lagu arko qof mucaarad la socdo loo bari waa adiguna mucaaradkii baa tahay wal mucaaradka lagu xina anigu mucaarad iyo dawladda burburi waligeey ma ka shaqeyn dad si gaar ah kugu yimid oo ku yiri walaasha waxa loo xiray in dadka mucaaradka aad gacan saar leedahay mi jireen waa badan tahay so many dad badan baa horta intii arintan dhicin bal igu dhahay is ilaali because mar baa waxaan aaday Emiraatiga oo daaweyn anigu waxaan ka soo jeedaa degmada ani South West baan ka soo baxay degmada baraan ka soo jeedaa shawani daacun baa ka dhacday markii la haystay wasaaraha iyo motion laga wada madaxweynaha la haystay motionkii wax ma ku jirin waan ka dhaxbaxay daaweyn ba dadkii u doonay waxaan leeyahay organization baan leeyahay ma fahantintan xildhibaan noqon ba organization kala hay marka magaca maadaama xildhibaannimada aan ku doonin karin oo dawladda isdhaafsan yihiin organization ahaan caawinaad u doonto organization bay soo siiyay daaweyn
ayagu waxay u arkeen marka inaan ahay xildhibaanad mucaarado dawladda ay ka soo horjeedaan doonto wax ka doonta marka dad kale baa anigu wax toosan ma ahan hadalo isdaafsanaa dhowr mar baa la ii soo diraa hadalo iyo wax marka waan u dareemayo inay saa tahay case-kan waxaan u arkaaba maamooyinka ila dagaaltan weligeena kali ka cudmo isdhin xushmo waxaan ma aan haynin weligeena marka inta xad la soo waxay la noqoto wax dil cajiib ah ma fahantay marka waxaan u dareensanahay inay ii arkaan inaan qof darad ku ah uma ku ihi weligoodana way ogaayeen ma fahantay